saabal waxaan qodobkan ku eegi doonaa Soomaalida iyo baraha bulshada aan ku bilownay gabar Soomaaliyeed oo cabanaysa ayaa sheegtay inay baraha bulshada uga cararayso Soomaalida kale oo ay ku tilmaantay kuwa dhibaatooyin badan ku haya dhiba caaya dacweeya isla markaana ku xaraasa baraha bulshada ilka gabadhan ayaa sidoo kale qiratay inay Soomaalida ka faafiso wacaalo xun iyadoo sheegtay inaanay jeclayn dalka Soomaaliya dhaqanka Soomaalida iyo inay toosh xun ku shido waxay ku sheegtay ceebta kufsiga iyo guurka khasabka ah ee ka jira Soomaalida dhexdeeda sida ay tireen. Hi TikTok, I'm here to vent today. Honestly, I don't want to hear it. I'm not that I hate, I'm disliking the Somali community on social media. I came out and told my story 7 months ago. Ever since then, 7 months, every time I come on social media, every time I come on live, I get bullied, I get hate, I get hate crimes, I get any type of hate spewed at me anytime I come on social media. Baraha bulshada Soomaalida ayaana meesha qura ee aad ku arkayso dumar badan oo caayaya ragga Soomaalida si ka duwan ummadaha kale walow halkii la caayi lahaa ay tahay in la waaniyo. dhanka kale waxa haatan baraha bulshada ka holcay muran cirqi iyo sinji ku dhisan oo ka dhaxaloosan Soomaalida iyo Kenyaanka kale aan ay doodaasi si xoogaysatay kadib hadal ay sheegtay gabar Soomaali ah oo ka carootay wiil taksiile ah oo gaarisa lagu dilay. Soomaalida ayaana marka qaar loola dhaqmaa ama loola hadlaa sidii inay yihiin muwaadiniin tabaqada labaad ah waan arrin ay hore uga hadashay gabadhan lagu magacaabo Iqra Albatros oo TikTok ku soo qortay dood ku saabsan dabtakoorka ay Soomaalidu ku wajahaan Kenya iyadoo ku doodaysa in Soomaalida Kenya ay dhaxda ku lunsan yihiin oo aan midna ka tirsanayn Kenya walaa Soomaaliya. waxaa barnaamijkan gacan ka geystay maqaayadda Mandy Palace Restaurant oo lagugu soo kordhiyay adeegyo cusub sida in lagu karinayo cuntooyinka munaasabadaha aroosyada ducooyinka sanad guurada shirarka iyo dalabaadka khaaska ah oo heer sare ah meesha ay ku taalo shaashada ka milicso. dhanka kale tan iyo dabayaaqadii bishii tagtay April waxaa South Africa ka holcaya rabshado ku aadan shisheeye nacayb khaasatan dadka Afrikaanka ah oo cunfi badan kala kulmaya dadka madowga ah ee South Afrikaanka ah khaasatan magaalooyinka Johannesburg, Pretoria iyo Durban. Aan arrintan xataa dhalisay xasarado diblomaasiyadeed oo ka dhex aloosan South Africa iyo Afrikada kale. halkan waxaa ka muuqda laba nin oo dadka muqshabeelka ah ama mixka loo yaqaano oo waliba u namuunad eg indhayarta ka timaada Thailand, Philippines iyo meelaha oo ka dacwoonaya Soomaalida ku sugan South Africa oo ay ku eedeynayaan inay dhaqankooda la yimaadeen halkaasi sida darteedna ay tahay inay dib ugu laabtaan Soomaaliya. maxay hadaba ka caroodeen ayna markaan ku doodayaan in Soomaalida cabashadooda laga dhageysto oo laga qadariyo isbitaal halka ku yaala balse aan iyaga wax war ah haba yaraatee laga qorin iyagoo isu arka inay yihiin dadkii maxalliga ahaa ee dhaladka ahaa. Somali community has requested a meeting with the board of directors of this hospital. The same board that has denied our people numerous times a meeting. They never ever had an opportunity to give us opportunity of a platform to discuss issues at this hospital. And here we see now foreigners are being given an opportunity to engage with me. isla South Africa hadii aanu sii joogno ninkani waxa uu ka dacwoonayaa Soomaalida oo uu ku eedeynayo inay dumarkii xitaa kala wareegeen oo sidaa ku qabsan rabaan South Africa. ahad kasta 200 oo Soomaali ah ayaa guursada haweenka magaalada Pretoria ayuu ku cataabaya. ninkan oo la hadlayay King David Studio podcast oo isna sida muuqata Soomaalida ku sii nudaya ayaa hordhigay weydiin ahayd in marka ay dhibka wadaan haweenka South Afrikaanka ah maadaama ay rabaan ragga Soomaaliyeed aanu sheekadii ninkii la aaday meel kaba sii daran iyo fan hadal khatar ah oo aan dooduba markii hore joogin isagoo tilmaamay in marka la doonayo in dal la milkiyo dumarka la kufsado kadibna sida lagu la wareego isagoo xitaa soo qaatay adoontii Afrika maraakiibta lagaga shixnaday ee laga talaabiyay badda Atlantiga oo uu xusay in dumarkoodii la kufsaday si loo dhaqan dooriyo markii America laga dejiyay. The other country targets the women of that other country. They rape them and change. They kill the men, take the women, rape them, and change the nationality of that country. Women have always been used as a weapon. They are always used as a weapon. isla South Africa waa halkan ka muuqda kooxaha madowga ah ee rabshadaha wada oo albaabada iskugu dhufanaya dukaamada yar yar ee Soomaalida ee loo yaqaan smart shops. Out. Everyone out. Close now. Late is my country. Not waste my time. meeshan waxaa sidoo kale laga arkaya gabdho Soomaali ah oo la sheegay inay yihiin ganacsato dukaanley ah oo lagu gulguulayo inay dib ugu laabtaan Soomaaliya xilli ay ku hareeraysan yihiin dad badan
oo rabshad walayaal ah oo u dhashay South Africa. ninkan odayga ahina wuxuu Soomaalida ku helay fursad qaali ah oo uu ku dhisaalo nacaybkiisa lid Soomaaliga ah isagoo soo qaatay haweeney Soomaaliyeed oo kaalmo weydiisanaysa cayrta dawladda South Africa ee loo yaqaano South African Social Security Agency ama SASA. waana gabadhani ku doodaysa in si loo caawiyo laga codsaday inay la timaado shatiga aqoonsiga cagaaran ee loo yaqaano Green ID. We are here as a Somali community. First of all, we are thanking our Somali community leaders who today try to bring us here for our cases for the SASAs, which has been discontinued for quite some months, to be listened and to be done something. waanu dato ninkan ku jeesjeesaya haweeneydan waanu Soomaalida ku tilmaamaya dad iyaga iyo lacagtu ay aragti ka dhaxayso isagoo ku baaqaya in dadka madowga ay soo baxaan kuwaas uu ku tilmaamayo dagaalyahano geesiyaal ah oo abidkood maaro u hela mashaqooyinka la soo darsa South Africa tii ay jirto in adoonsi nooc ugu xumaa ah ugu jireen cadaan tiro yar oo Yurub ka soo dalaabay oo halka ku dhaqayay hanaankii foosha xumaa ee apartheid tan iyo 1994 taasoo South Africa ka dhigaysa dalka ugu dambeeyay ee Afrikaan ah ee gumaysi gacanta ugu jiray waana xusid mudan in Soomaaliya ay kamid ahayd dalalkii u gurman jiray madowgii dulmana ee South Africa dad badan ayay sila tahay inay fiicnayd in haweeneydani ay saxaafadda ka fogaato marka ay arrimahan oo kale ka hadlayso waayo waxay taasi hubaynaysaa ninkan oo kale iyo wax la midka ah waana durba muuqaalka gabadhan si weyn u faafinaya kayfanayaal badan oo South African ah dhanka kale wasiirka ammaanka gudaha dawladda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa dhawaantan la kulmay hogaamiyaha Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré mar uu booqasho rasmi ah ku kala bixiyay caasimadda Wagadugu Arbacadii tagtay ninkan ayaa hadaba waxa uu sheegayaa in Fartaag uu fariin ka siday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo doonaya inay meelo badan iska kaashadaan Burkina Faso gaar ahaan dhinacyada ammaanka mase sii sharaxin sababta waase uu ninkan tilmaamay in Xasan Sheekh Maxamuud uu aad ugu riyaaqsan yahay oo lana dhacsan yahay hogaaminta Traoré. The Minister of Security of Somalia paid a visit to Burkina Faso. He carried along a goodwill message, a message of admiration from the President of Somalia to Captain Ibrahim Traoré to tell him how he admires Mohamed Haji, Hadalsame TV.